nabadda heelan bay u ahaayeen kuwaas halkoodii ku mahadsan yihiin khayrkeedii ajarkeedina way heleen qaarna waa dadkii shaqaaqada ka shaqaynayay oo wixii dagaalamayay ama wax bixinayay kombiyuutar ma ahayne dad inaga un bay ahaayeen dadkana sidoodaba marka la hadlayo waa laba qaybood qayb waxa laga hadlaa qalbiga ama maskaxdooda ayaa la hadlaa oo waa dadka waxa weeyaan leh waasic iimaani marka la yiraahdo ayu alladina aamanu wa kuwa soo joogsada qaarna waasic suldaaniya baa lagu hadlaayo awood ayaa la duldhigaa dadkii marka iimaanka laga hadlayo waa dadka nabadda qaatay ee maanta halka u fadhiya ee shaqaynaya ee dadaalaya waxa inaga rabaa marka inaynu noqono dadka noocaas kuwa taageera ee dhamaystiran nabadgelyada iyada ah waxaanu tolka iyo ehelkayga u soo jeedinaynaa qofku waa khaldami karaa qof kasto uu khalad ka dhacay shaqaaqadan maanta dhacday inuu saxo ayaa laga doonaya baaqayaga asalka ah ee aanu meesha u nimi ama soo jeedinaynaa ka weeye haddii waxa weeyaan qofku uu qaato dambigii iyo dhibtii dhacay Allah waa ka meeriya subhanahu wa ta'ala ajar iyo xasanaad iyo khayrna waa lagu bedelaya quraanka waa aragteen suuratul furqaan markii laga soo hadlay dadkii shirkiga sameeyay wax dilay sinaystay waxa la yiri cadaabta waa loo laalaabaya waana lagu waarinaya illa man taaba wa aamana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kuwa wixii ka dhacay ee sayyi'aad aha hasanad baa loogu bedelaya marka si hasanad lagu bedelo haddii aad lacag ku bixisay dagaalkii iyo shaqaaqadii maanta waxa aad lacag ku bixisaa nabadda iyo hirgelinteeda iyo waxa weeyaan dhiirigelinteeda haddii aad hadal ku bixisay shaqaaqadii iyo dhibtii maanta waxaad ku bixisaa nabadgelyada waxa weeyaan hadalkii mid la mid ah dad badan baa jira oo kaliba soo duubay qaar waxa jira gabiyay qaar waxa jira buraanburay dadkii dhiirigelinta noocaas ka qayb qaatay maanta waxa laga doonayaa inay dhiirigelinta dhinaca kale ay ka qayb qaataan dadku waa laba nooc sunnadu inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam dad furayaal u ah khayrka inna min an-naasi nas mafatihu lil khayr maghaliqu lil shar iyo dad furayaal u ah sharka khayrkana waxa weeyaan xira kuwaasina waxa weeyaan kuwa ahlu naarka nabiguna kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay jinaasada markii la soo agmariyay waxa uu yiri dadkii markay amaaneen wajabad markii waxa weeyaan jinaasadii kale la agmariyay ay caayeen wuxuu yiri wajabad haddii nabiga la weydiiyay kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri kii hore khayr baad ku sheegteeno khayrkii baa u waajibay idinkuna waxa tii marxaatiga dhulka ilaahay kii dambana shar baad ku sheegteen sharkii baa u waajibay maanta marka qofka nabadda qaadan waaya wuxuu noqonayaa qof xumaan iyo shar ay u waajibeen marka waxaan leeyahay magacaagu iyuu noqon mid xumaan ka marakaca qofka magaciisa marka la arko dilaa waa hebel shaydaankii laga cawdu bilaysto waa musiibo midigtaadu yay noqon mid tulkeed muruq weyn qorigan aad haysatid iyo waxa weeyaan waxaan aad ku dagaalamaysid iyo lacagtan aad bixinaysid ee fidnada iyo xumaanta aad ku bixinaysid ha noqoto midigtaadu mid khayrka iyo wanaaga muruq weyn ha noqoto waxa la inaga doonayaa anaga baaqayaga ama bayaanka aan jeedinayna uu yahay dadkani waa dad wada dhashay waa dad walaalaha sida la tilmaamay maanta waxaan u baahanahay nabadii in la adkeeyo waana la sii adkeynaya waxaan sii dhiirigelinayaa qodobkan la soo saaray oo ah ganaaxa qofka nabadgelyada ka hor yimaada in lagu qaado maanta nin guuleystay in laga guuleystay midna ma jiro dhammaan waa la khasaaray waxa loo khasaaray dhig baa daatay kharash baa baxay ummad baa daashay hawaar baa dhacay waa khasaaro waxaas marka qof guuleystay ma jiro dagaal taariikh xun leh weeye ma dagaal taariikh wanaagsan leh ma aha annaga adkaanay ama annaga waxa sameeyay waxaan jeclahay hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo fidnadu waxay ka dhacday beertana waa la isku qabtay haddii la isku qabtay xukun ayaa ka dhacay xukunka nin waa loo xukumay beertiyo isagu waa wixii uu rabay baa loo xukumay waa arrin wanaagsan wixii sabir iyo dhibti kale ay soo gaadhay inuu ku sabro laakiin waxaan doonayaa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo beesha gaashaanbuur oo runtii wixii ay iyagu rabeen aan la xukumin wax badan oo ka mid ah ee la xukumay waxyaabihii kale ee dhinaca kale ahaa taasoo waxa weeyaan shariicada islaamka soo baxday qaadashadii ay qaateen iyo qanaacadii ay ku qanceen iyo iimaansigii ay iimaansadeen ee goobtii iyagoo aan ka tashan ay ku qaateen dhammaantood waxay ahayd arrin aad u wanaagsan runtii waan uga mahadnaqayaa waqtiga oo aad u kooban darteed intaasaan jeclahay inaan ku soo koobo wassalaamu calaykum waraxmatullah